hogaamiyaha dowlad goboleedka la yiraahdo Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta ku wajahan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya isaga iyo wafdi uu hogaaminayo. Wararka aan helnay ayaa sheegaya in xalay kulamo aan kala joogsi lahayn ay ka dhaceen gudaha madaxtooyada Kismaayo, waxaana la sheegay in wafdigan 3 qodob ay u tagi doonaan gudaha magaaladaasi. Waxaa qayb ka ah in Axmed Madoobe laga taageero culeysyada kaga imaanaya dowladda federaalka Soomaaliya ee ku saabsan dhismaha maamul cusub oo aan ahayn kan Jubbaland, iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka iyo sidii wadaxaajood Axmed Madoobe uu ula gali lahaa dowladda federaalka Soomaaliya. Kenya ayaa la sheegay in uu door biday in arrintaasi ay ka caawiso, isla markaana madaxweynaha dalka Kenya iyo mas'uuliyiinta kale ee dalkaasi ay la hadlaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Qaab erga ahaan ay wararku sheegayaan in Axmed Madoobe uu u soo diri doono dowladda Kenya, inkastoo aan la ogeyn in dowladda Soomaaliya ay arrintaasi qaadan doonto. Waa markii labaad ee bishan gudaheeda Axmed Madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ay gaaraan gudaha dalka Kenya, iyada oo aan ognahay in markii hore Axmed Madoobe uu aad uga soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana uu sheegayay in dhismaha maamulkiisa sax uu yahay. Ha yeeshee, shirka golaha wadatashiga ee ka dhacay magaalada caasimadda ah Muqdisho waxaa lagu go'aamiyay, isla markaana dowladda ay ku sheegtay in maamul kale ay ka dhisayso gobolka Gedo, waxaana amarkaasi la siiyay wasaaradda arrimaha gudaha oo la faray in qodobada dastuuriga ay raacdo, isla markaana ay dhisto maamul sharciyeysan oo aan ahayn kan Jubbaland. Jubbaland iyo Puntland ayaa markasta qaadacsan horumarada ka jira dalka, nidaamka dowladeed ee federaalka, awaamirta dowladda dhexe, iyo sidoo kale inay u hoggaansamaan. Waxaase hore ninka la yiraahdo Fahad Yaasin Xaaji Daahir uu sheegay in labadaasi maamul madaxdooda ay yihiin laf dhuunta u gashay dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana ay ka soo horjeedaan jiritaanka iyo dowladnimada dalka. Lama oga halka uu ku soo dhamaan doono safarka Axmed Madoobe ee uu ku tagaayo gudaha dalka Kenya iyo wadaxaajoodka uu rabo in loogu ergegeeyo dowladda federaalka.